banaadir gobol si xooli ah u koraya dhaqaale ahaan kobcaya oo soo jiidanaya maalgashiyo waaweyn xirfadyahano iyo xoogsato tiro badan oo haminaya nolol tayo iyo degnaan leh helitaanka iyo tayeenta adeegyada aasaasiga ah ee ammaanka caafimaadka waxbarashada nadaafadda iyo matalaadda bulshada gobolka waa mas'uuliyad loo xilsaaray maamul gobolka si loo helo xulashooyinka ugu habboon ee maamulka cusub ku howlgali karo oo xaqiijinaysa himilooyinkan ayuu gobolku yeeshay kulan wada tashi maamul kii ugu horreeyay banbaxa banaadir waxaa muddo 4 maalin ah halkan ku kulansanaa mas'uuliyiinta qaybaha kala duwan ee gobolka banaadir iyo dawladda hoose ee xamar waxaa laga dooday la turxaan bixiyay ugu dambeynna go'aamo laga gaaray hab dhismeedka maamul daahfurnaanta nidaamka maaliyadeed tayeenta iyo kordhinta adeegyada dib u habeenta shuruucda lagu maamulo gobolka istiraatiijiyada guud ee uu gobolku yeesho hawl tilmaame cad oo iswaafajinaya shaqooyinka iyo shaqaalaha mashaariicda gobolka banaadir waa run waxay ka dambaysaa mashaariicda kaleento ee magaalooyinka wadanka laga sameeyo iyo maamul goboleedyada runtii 5 sano iyo 4 sano ee soo socota waxaan hiigsanayna runtii meel fog ayaan hiigsanaynaa waxaan rabnaa gobolkan banaadir oo leh itijaah oo leh maxaa la raadayay hiigsi leh yaan rabnaa in la gaaro waxyaabaha aan ku gaari karnaa runtii markii dawladda aan haysano loo fiiriyo caqabado badan iska jira oo dhanka runtii la yiraahdo fanka iyo waxyaabahaas waxaan rabnaa gobolkan banaadir in uu noqdo 5 sano ee soo socota meelaha ugu fiican ee laga faa'iideysto mashaariicda hanaankii loo qorsheeyay ee loo soo maray waxay ahayd wada tashiyo bulsho oo dhammaan 17 degmo ee magaalada Muqdisho ka dhacay waxa ka horeeyay wax la yiraahdo hiigsiga Muqdisho oo dhammaan dadka Muqdisho lagala tashtay haweenka dhalinyarada culimada dhammaan saamileyda wax la isku keenay hiigsiga marka waa hiigsi fog ee 2040 kaliya Muqdisho marka ay leedahay dadka Muqdisho marka ay isla wada ogolaadeen si waafaqsan marka hiigsiga ay si wada tashin ku yimid ayaa istiraatiijiyada 5 sano laga baray daahfurnaanta iyo sugnaanta nidaamka maaliyadeed ee gobolka banaadir ma ahayn mid la jaan qaadaya kan casriga ah ee dunida waa sababta ugu weyn ee mashaariicda lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha uusan gobolku ugu faa'iideysan sidii loogu talagalay gobolka runtii miisaaniyadiisa waxaan ansixinay annaga 31 bisha 2022 miisaaniyadu waxay ka kooban tahay waxa lagu qiyaasay maxaa la yiraahdaa sida ku cadmo 47 milyan waa un dakhligan aruuri doono iyo sidaan u maareyn doono hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah taala annagoo marka ku xisaabtamayna ilaah dakhli aan leenahay waan dhaqan gelin doonaa miisaaniyadda hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah gobolku waxa uu meel mariyay miisaaniyad sanadeed gaaraysa 47 milyan oo dollar oo ku saleysan daraska dakhliga adeegyada iyo howl socodsiinta dakhliga iyo adeegyada waa howlo sida silsiladda oo kale isugu xiran ummadda Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka banaadir waxay ka filaysaa maamulka cusub wax qabad soo annaga waajibaadana saaran dadkuna waajibaad saaran waajibka saaran marka bulshada ku dhaqan gobolka banaadir xuquuqka ah inay bixiyaan cashuurta si aan annaga u gaarsiino adeegyada la rabo inaan gaarsiino bulshada sida caafimaadka waxbarashada nadaafadda inaan ka shaqeyno iyo biyo mareennada intooda soo hal raba marka in bulshada iyagu ay bixiyaan cashuuraha haddii ahayd shatiga inay goostaan cashuurta guryaha inay bixiyaan iyo cashuuraha kala duwan oo waajib ku ah nidaamka federaalka ah ee uu dalka qaatay xawliga tiknoolajiyadda iyo isbeddelka habnololeedka dadka ayaa ah arrin kale oo u baahan in muhiimad gaar ah la siiyo marka laga hadlayo shuruucda iyo xeerarka gobolka banaadir kulankii banbaxa ujeedadiisa ugu muhiimsan waxay ahayd in gobolka banaadir maamulkiisa kala duwan dawladda hoose iyo degmooyinka
ay ku kala xog qaataan isku wareystaan isla markaasna la isla fahmo caqabadaha haysta maamulka gobolka Banaadir ee socodsiinta howlaha maalinlaha ah iyo kuwa istiraatiijiga ah intaba iyo in dib u eegis lagu sameeyo hannaanka wada shaqaynta ee hadda jira ee lagu shaqeeyo maamulka gobolka uu ku shaqeeyo si loo hubiyo in hannaankaas uu yahay sidii ugu fiicneed ee wada shaqayneed ee gobolka Banaadir u baahnaa iyo in ay tahay in dib loogu noqdo oo wax laga bedelo nidaamka wada shaqaynta maamulka gobolka Banaadir ujeedadaas ayaa ahayd midda ugu muhiimsan ee banbaxa loo qabtay qorshaha guud ee dalkaba ku qoran waxa waaye waddanka dhammaantiis wuxuu u socdaa in uu isku filnaanshiyo xagga dhaqaalaha gaaro gaar ahaan marka la joogo dakhliga wax soo saarka dakhliga gudaha ayaa waxaa la rabaa si aad iyo aad u weyn in loo xoojiyo markaad fiirisid miisaaniyadda sanad walba aan dejinno waxaa ka muuqda koror hadda xawligiisa uu hooseeyo sababo badan oo ku xiran darteed laakiin mustaqbalka dhow maadaama amniguna soo hagaagayo bulshada wacyigeedana uu kor u soo kacayo maamulka naftirkiisana waxqabadka laga filaayo uu aad u ballaaran yahay oo la doonayo bulshada aan dakhliga ka soo qaadayna canshuur bixiyaasha muwaadiniinta canshuur bixiyaasha ah gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho waxa ay gobolka Banaadir maamulkiisa ka doonayaan waxa waaye canshuurta ay bixiyaan in ay noqoto mid ayaga loogu adeego oo danaha guud ee dadkaas ay leeyihiin oo asaasiga ah lagu qabto istiraatiijiyada guud ee gobolku ku shaqeynayo muddada 5 sano ee soo socoto waa mid xaqiijinaysa himilooyinka guud ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana ku qotanta hirgelinta himilooyin waara oo nolosha bulshada tayo u yeelaya istiraatiijiyadan hadda 5 sano ah ee maamulka gobolka ku soo bandhigay shirka banbaxa waa istiraatiijiyo ku tolan qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad oo dawladda Soomaaliya leedahay qorshahaas oo dhammaan ka tarjumayo ahdaafta horumarineed ee dalka ka iyo ku tolan tahay taas marka waxay toos uga jawaabaysaa marka hiigsiga iyo ma arkaysa rabitaanada dawladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale markii laga tago qorshaha sidoo kale waxay ku tolan tahay qorshaha guud ama aragtida guud ee midowga Afrika waxaan leeyahay African Union Agenda 2063 ay ku tolan tahay iyo qorshayaasha kale dunida marka u degsan oo ay kamid tahay himilooyinka waara ee ma arkaysa UN marka adduunka oo dhan marka ay u dejiyeen iyo arrimaha kale ama ajendayaasha kale ee caalamiga ah ee ku xiran ku hareeraysa marka horumarinta magaalooyinka marka istiraatiijiyada 5 sano ee gobolka Banaadir hadda soo bandhigay ee 2023 ilaa 2027 waxay toos uga jawaabaysaa marka himilooyinka iyo hiigsiyada marka dawladda ay leedahay oo ugu horeyso ee amniga dalka marka in la xasiliyo wixii gobolka Banaadir marka kaga aadan kadibna kor loo qaado adeegyada bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha marka si u suura gasho magaalada Muqdisho marka ay noqoto magaalo dhaqaalaheedu kobco fursado ay ka helaan dadka Soomaaliyeed oo dhalinyarada ugu badantay jaamacadaha ka soo baxayaan marka waa istiraatiijiyo la xiriirto waajibaadka iyo himilooyinka fog ee marka dawladda Soomaaliya ay leedahay maamulka Banaadir waxa uu shirka ku soo bandhigay banbaxa istiraatiijiyada 5 sano ee soo socota marka istiraatiijiyada ay ku qoreen howlaha la qorsheeyay waxaan istiraatiijiyadu ka kooban tahay 5 tiir oo waaweyn 5 tiir ayaa kala ah amniga cadaaladda adeegyada bulshada horumarinta dhaqaalaha iyo kaabayaasha siyaasadda loo dhanyahay oo inta badan maamul dhiska iyo golayaasha deegaanka iyo maqaamka Muqdisho ka hadlayso iyo qodobo qubanaha oo ay ka mid tahay biy'ada iyo tababarka shaqaalaha iyo arrimaha la xiriira ee dhalinyarada iyo haweenka shaqasiintooda marka 5 tiir istiraatiijiyada ka kooban tahay howlaha hortaginta leh 5 sano soo socota la qaban doono waxay hoosgalayaan 5 tiir oo hoosgalayaan aan idin sheegay marka qaybahaas laga soo bixinaya haddii aan adeegii bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo nadaafadda magaalada la xiriirtay amniga oo isagana hagaajintiisa iyo magaalada Muqdisho ay nabad ku noqonayd ay tahay horumarinta dhaqaalaha oo dhaqaalaha kor loo qaado shaqo abuurka la sameeyo magaalada Muqdisho laga dhigo magaalo ganacsi oo ku habboon la maalgashan karo meelahaasna aad ayaa looga fiirinayaa dhinaca kalena waxaa meesha ku jira kaabayaasha isku socodka in la hagaajiyo wadooyinka magaalada Muqdisho in la hagaajiyo naleentooda marka la hagaajiyo kuwa la dhisana dayactirkooda aad looga warqabo si marka ay noqoto magaalo nadiif ah oo cagaaran sida ka aragteen mawduuciyadka ku qornay shirka soo baxay istiraatiijiyada guud ee uu gobolku yeesho qorshe sanadeed ay la socdaan howl tilmaamiyaashiisa miisaaniyad iyo nidaam maaliyadeed oo hufan daahfurnaan iyo dib u habeyn lagu sameeyo habdhismeedka maamulka iyo shuruucda waa arrin wax weyn ka taraysa adeegsiinta in ka badan 3 milyan oo ku nool
gobolka banaadir.